madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ku guda jira kormeerkiisan oo ku indhaindheynayo xaaladaha deegaanada Soomaaliland ayaa intii ku signaa degmada Xaaji Saalax waxa isaga iyo waftigiisa ballaadhan oo hogaaminaya ka qayb galeen munaasabad culus oo shacabka deegaankaasi ku qaabileen madaxweynaha iyo waftigiisa la socda isla markaana ay ku soo dhaweeyeen dadka deegaanka Xaaji Saalax ayaa si kaliya laaba u muujiyay dareenka shucuur wadaniyadeed oo ay ku qaabilayaan madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisa taasi oo ka turjumaysa waxqabadka ballaadhan ee madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu ka hirgeliyay guud ahaanba dalka Soomaaliland maamulka heer degmo ee Xaaji Saalax maamulka gobolka Daadmareedhe cuqaasha iyo waxgaradka deegaankaasi ayaa madaxweynaha ku hambalyeeyay waxqabadkan madmadowga lahayn ee uu ka hirgeliyay Soomaaliland iyagoona ku amaanay socdaalkan uu ku soo gaadhay degmada Xaaji Saalax shacabkii reer Xaaji Saalax oo gacmo furan iyo qalbi saafiya kugu soo dhaweynaya waxaan leeyahay hadaalina waynu tashanaynaa xukuumadeennuna wax walba waynala garab taagan tahay waxaanan jecelahay aad iyo aad inaynu u hirgelinno adeega bulshada iyo waxqabadka iyo danaheen iyo wax soo saarkeennaba inaynu heegan u ahaanaaban doonaya ana ku balaqaadaya hadaan Chief Caaqil Axmed Chief Caaqil Xuseen Chief Caaqil Libax inaanu ku kordhino muddada ayaan ku balaqaadayna hadii la yiraahdo shanta ka dambeeyana aan ku doorano hadii la yiraahdo ayaan ku balaqaadayna oo aan ku magaranaysaa ay kugu soo dhaweynayna in waxqabadka wadanka oo dhan Soomaaliland oo dhan aad ka qabatay oo mid muuqda yahay oo mid aad iyo aad u fiican yahay waxa aadna bartay in dadku wax qabsadaan Soomaaliland oo dhan waxa ka socda waxqabad mid aad iyo aad u badan baa ka socda wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdi Daahir Cali wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse wasiirka wasaaradda deegaanka Shukri Xaaji Baandare iyo Xildhibaan Waabeey oo ka hadlay xafladan lagu soo dhaweynaya madaxweynaha Soomaaliland ee ku qaabileen shacabka deegaanka Xaaji Saalax ayaa u mahadnaqay sida kalsoonida leh ay dadkaasi u qaabileen wafdiga madaxweynaha saldhiga waxa kaloo aanu ballan qaadaynaa annaka oo magaca madaxweynaha ku hadlayna wixii aan noo sheegteen wixii aanu qabanay wixii aan qabateenna qabate wixii aanu qaban karnay insha Allah tacaala waanu qabanaynaa markaanu ku noqono Hargeysa inta aad sheegteen intii aanu ka qaban kareyno annaka oo la kaashanayna wasiirada kale ee jira waxaanu ballan qaadaynaa inaanu qabanno waayo sida aad wax u qabsateen waa in la idinku taageeraa aad iyo aadna waa ugu mahadsantahay maantana waxaan idin leenahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin sida ay cuqaashi halkan ka hadashay u sheegtay weeye cuqaashu waxa ay qirtay in madaxweynaha iyo dawladdiisu ay waxqabad la taaban karayo muujiyeen waxqabadkaasina aanu ahayn mid la qarin karayo waxa ay muujiyeen oo ay qireen goobtu waa tii wax qirta sida ay u qirteenna dawladdu diyaar bay idinku tahay inay wax idinla qabato oo idinkuna aan noqotaan kuwa foodkoodii iyo dalkooday xaq ugu leeyihiin labadaba iyo gobonnimada soo dhoweynta aad muujinaysaan iyo sida aad caloosha wanaagsan ugu muujinaysaan madaxweynaha iyo dawladda iyo dalkaba abaalkeedana waa ku helaysaan ee taana yuu warwar idinka gelin maantana wuu idiin imanaya madaxweynuhu waa ka inoo yimi waa ka maanta ina dhagaysanaya waa ka maanta wafdigi ballaadhnayd ee ay ku jiraan wasiiradu runtii wasiiradu si wanaagsan uga wada hadleen mahad baa ilaahay baa lahayd mahadle madaxweyne wasiirada maanta u xil saaran bulshada horumarinteedu si weyn bay horta halkan uga wada qayb qaateen waana isku wada muujiyeen waana loogu mahad celinaya si aan la soo koobi karin taasoo ka muuqata dhammaan dalka waxqabadku waa ka dadka la isagu doorto waxqabadku waa ka la xisaabiyo dadkii hore marka la kaambeynka ay ku jira waxaan loo jeeday wadadii waxa calaamadsantaan maanta halkaynu marayno waxaan wadankan loogu yimi miisaaniyad jaya 40 milyan waxay maanta maraysaa 300 milyan oo dollar ku dhawaada
waxaana dayactiray dhammaan hay-adihii dowladaha. madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa shacabka deegaankaas uga mahadnaqay soo dhaweynta diiran ay ku qaabileen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. madaxweynaha Saalax ee gobolka Daadbareed aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa sida sharafta iyo qiimaha leh ee noo soo dhaweyseen sida sharafta leh wanaagga aad marti qaadeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. haddii aanu dowladda nahay safar dheer baan ku jirnaa xogaal baanu doonaynaa dalka u noqonno waxaan doonaynaa inaan xogaal u noqonno waanu waraysano dadka iyaga iyo dalkaygu wuxuu ku sugan yahay halkan waanu nimid xaaladeeda waanu la jeednaa waana laga warramay taariikhda ay halkan leedahay gobolka uu leeyahay waan ognahay gobolka Daadbareed degmada Xaaji Saalax aad iyo aad baan idinku mahadinaynaa soo dhaweynta fiican iyo sida qiimaha aad doo gasheen insha Allahu tacaala baayaha dalka iyo gobolka yaala iyo degmada yaalaba waa laga warramay mas-uuliyiintii iyo dadkii odayaasha ahaa ee deegaanka ahba ka warramay waanu tixgelinaynaa waanu qaadanaynaa waanu ku xisaabtanaynaa wixii aanu ka qaban karno waanu ka qabanaynaa waxaanu kala hadlaynaa ma jiro insha Allahu tacaala intaasi kadibna waxa uu madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu xariga ka jaray mashaariic waxtar leh xukuumaddiisu ka fulisay deegaanka Xaaji Saalax halka kuwa kalena uu dhagax dhigay dadka deegaankaasi. Cabsaaq Farax Cabdilaahi TV-ga qaranka Somaliland Burco.